labadii jeer aan aad u murugooday ahayd mid ka mid ah magaaladiiyo qiiqayso oo qac meel walba uu ka socdaan arkay waa magaaladeydii ma ogtahay oo noloshayda oo dhan dadka marka la laayay meydadka jidka ma yaalaan guryaha lagu laayay ha meydad yaa yaalaha buundada inta maxaafadaas dadaa yaalan inta marka laakiin qof meyd ku mashquulsanba malo dadka waa qaxayaan marka wadooyinkiiyo dhan qof walba wuxuu qaadan karo wataa waa la qaxay ishaada intay arkayso marka waa la qaxayaa kulanti wanaagsan khiyaaray waa mar kale yahay noolaato aniguna waa Yaanla Xuseen Cabdi waa qaybtii labaad ee waraysiga aan ku wareysanaynay Cabdi Aadan Hoosow oo kamid ah dhalinyarada ku barbaartay magaalada Baydhabo kuna dhashay oo ka sheekeynaya waayihiisii noloshii uu ku koray iyo sida ay u ekayd magaalada Baydhabo qaybtan labaad waxaan uga sheekeyn doonaa markii uu tacliinta ku jiray waxyaabihii keeni karay burburka iyo afaalihii muuqday wadanka burburka markuu dhacay iyo waxyaabihii ka dhacay magaalada Baydhabo oo lagu tilmaamay inay ahayd meelaha ugu adag ee marka la eego musiibooyinkii bini'aadamku ay ka dhaceen dalkeena guud ahaan marka la fiiriyo Cabdi Aadan Hoosow waa qaybtii labaad ee waraysigeena waana ku mahadsan tahay waxay noo joogtay adiga oo dugsigii sare markaa dhamaynaya qaybtan waxaan rabnaa markii aan uga sheekeyno markaas aad dugsiga sare dhiganaysay wax ififaala ah oo ku muuqday inuu dalku burburayo ma jireen ha laakiin mustawaha caqligeena iyo da'deena markaas da'deyda iyo dadka aniga ila midka ahayo sidaan u cabiri karnay waa calaamadahana hor yaalay sidaan hadda u fahmi karo iyo xilligaas sidaan u fahamsanaa waa kala duwan yihiin horta waxaan xusuustaa ayadoo la leeyahay soo daf raadiyo kulmis ayaa la dhageysanaa hebel raadiyo kulmis isagoo dhageysanaa ayaa la qabtay marka waxaad intaas isuga geyso hore ka fahmi kartid ma ahayn wax cadaadis oo magaalada ka jiri jiray oo cadaadis xagga dawladda ka imaanaysa waa ku soo wada waxa kale oo jiray waan xusuustaa markaas normal ila ahaa laakiin hadda yani aan la yaabo waxa kamid ah sokora saf loo galaa sonkor caadi ah ya sabab saf loo galaa yani wixii ma heli kartid wax toos loo heli karo ma hadii kale waa qaali marka saf hadii loo galo ma lacag la rafaad maanta oo dhan may lacag bixinaysa laakiin ka yartii meelaha aad ka heli lahayd marka dawladda ay iibinayso ha waxyaabaha kale oo aan la yaabi jirnay waxa kamid ah yani sinaan la'aanta dadka iyo maamul xumo iyo wax noocaas iska jira waxa kamid ah jaad oo la leeyahay qaadka waa contraband haddana baabuurtii dawladana ay lagu keeno dadka qaarna si furan oo la og yahay ay u cuni karaan dadka qaarna aysan cuni karin oo dambi ay noqonayso waa selective si uun waxyaabaha qaar aan xusuusto oo kale waxaa kamid ahaa wax la yidhaha guul wadayaal yani bahal guduudan meelahan ku xiran oo iyo guddiye xaafadeed oo laamihii iyo wixii laan walba waa islaan baa looga dhigaa madax marka naagihii kale yani dumarkii kale ayadaa soo saaraysa guryaha shir baa jiraa la leeyahay guryihii bay kasoo saaraysaa ayadoo marka aan loo fiirinaynin mas-uuliyadda saaran maamadaas guriga joogto waxaa laga yaabaa inay caruur badan guriga u joogto ilmihii dugsi in laga soo wada la rabo yani yani lasoo saara waxaan xusuustaa marka aniga hooyaday baa maalin la yiri meeshii xaafadda meeshii la tagayay laanta ayaa loo waday marka aabahay oo markaas askari ahaa ayaan xusuustaa waayo aad inta u xanaaqay
meeshii ugu tagay oo xoog kusoo kaxeeyaan xusuustaa oo uu dhib ka soo gaarayba oo uu leeyahay ma bixi kartid hooyo markii la wadaa nakeenaa leeyahay shir baa jire laantaa shir ka jiraaye nakeen odagiina marka wuxuu rabaa shaquu ka yimid waa askari dowladda uu soo shaqeeyey waa soo daalay wuxuu rabaa caruurtiisa iyo wixii oo nadiifa gurigii iyo diyaarsan cuntadiisa laakiin haddii markuu yimaado ilmihii oo kala daadsan uu inta u yimaado la yidhahdo ka hor xaaskaaga laantii bay ku maqan tahay marka waa tagay aabba marka uu soo watay soo watay muxuu la kulmay markaa adiga markii dambe uun maaragtay gadaal waxbaa kasoo gaargaaray laakiin wax weyn oo dhibaateeye ma ahayn markaasayna ugu dambeysay aniga ma aqaan wuxuu sameeyey yani waxaan ka wada waxyaabaha marka dhadhacayay oo waxaan xanaaqa dadka iyo aniga qaybtaydaas yar indhahayga aan ku arki karaan markaas ku arki karay baan kaaga sheekeynaya moogta waxaas waa weyn oo odayaashii iyo ay kusoo jireen oo gobollo kale iyo markaas aniga ma garan karin laakiin waxa rasmiga markii dambe aan aragnay waxaa waaye markii dadkii waqooyiga ay soo qaxeen oo ay koonfur oo dhan soo aadeen kuwii baydhabo markay soo gaareen marka dad reer waqooyi oo meesha waxaa deganaa oo magaca leh runtii oo islaan maraweyn la dhihi jiray iyo burburye iyo burburshe iyo dad noocaas oo la yaqaan oo muxtarimiin ahoo reer waqooyi oo ayaa deganaa magaalo intaan aniga markaas ka aqaanay ma aha in labadaas keliya ay deganaayeen laakiin intaan markaas ka garanay marka dadka markaan aragnay dadkan magaalada ku cusub oo afkii maxaatirigii oo adag ku hadlaya macnaha kuwan nala joogay oo nala deganaa afkooda waa iska yara khafiifay moogtaa maadaama ay intaasoo sano deganaayeen marka afkii localkana waa ku qasaa xoogo moogtaa waa isbedela afka laakiin kuwan markay yimaadeen oo naga dhaqan duwan oo yani waxaan daran maxay yihiin dadkan marka waxaa la dhihi jiray waa xabadi keenta marka xabadi keenta maxaa looga jeedaa annaga markaas xabad iyo lagama yaqaan meesha yani hebel waa gacan ku dhiig la dhihi jiray dadkao dhan waa yaqaaneen yani dadka waa dad peaceful oo nabad ku nool oo yani resourceska iyo waxyaabahan aanan u dagaalamin oo haysta waxooda sidaan markii horeba kaaga sheekeynaya waaye marka dil iyo bahalkii lama aqoon marka dadkan markii la yidhi xabada keenta waaye maxaa laga wadaa dhulkooda dagaal ka socda marka sidaasay usoo qaxeen marka waxaan xusuustaa ayagana marka la yiraahdo waa xabadi keento ayagana waxay dhihi jireen xabadi sugtaa tihiin adinkana xabadda annagana keentay baad adinkana sugaysaan waxay dulmi yihiin wixii dulmi maadaama adinkana waa soo gaari doonta marka dad marka wadanka gudihiisa ka soo qaxay dowladna ka soo qaxay oo la leeyahay magaalooyinkooda waa burbureen oo dad badanna waa ka dhinteen oo socdoo nool oo sheekeynaya markaan aragnay marka waxay noo ahayd yani calaamado rasmi laakiin si fiican uma akrin karin annaga xilligaas oo waxaan u haysanay in dhinacaasna uun ay dhibaata ka jirayso la xallin doono si lagu xalliyaba dhinacan kalena uun nabadan ay sii ahaan doonto dadkana dad Soomaaliyeed oo maaragtay wadankooda kusoo dhaxqaxay inay yihiin ayaan maaragtay markaas u haysan iyo dadka deegaanka oo dowladnimada okol iyo qabyaaladoo aan xoog ku lahayn meesha qabyaalada annaga biyootaan dhan biyoota waa wax biyo rinji biyo badan lagu daro oo kale ama wax sidii ay ahaayeen barax qabyaalada aaday barax uga ahayd meeshaas qabyaaladan iyo dowladnimadan isku xiran iyo wasiirnimada iyo qabyaalada isku xiran iyo gudoomiyenimada iyo qabyaalada isku xiran iyo ninka lacagta leh iyo qabyaalada isku xiran iyo waxaas ma qabin dadka marka individuals ay halka meelaha qaar
ee Soomaaliya kamid ah iyadoo ay dawlad jirto loo dadku ay ku qanacsanaayeen inay u dacwoodaan odaga reerka suldaanka isimka annaga waxaan ka jecleen police stationka qofka inuu aado taas micnaheeda ma in cadaalad mar walba ay heli jireen laakiin habkay dadka u samaysnaayeen dad madani ay ahaayeen oo ilbaxa oo qabyaalada aan sidaas marka calaamada ugu weyn marka taasay ahayd dadkan soo qaxay oo yimid meesha oo bandow iyo tacdiyo kala xusuusato magaalada ka dhici jiray ma jireen waqtiyadaas mar dambay ahayd markii xabadaha xamar inay ka bilowdaan ay ku dhaweyd oo USC iyo inta iyo waxaas ay bilaaban rabaan in fact ay bilaaban rabaan ayaan dhehne xamar banaankiisa ay xoogoo ka soo bilaabatay oo baasha waqooyi ay toos u soo dhaaftay oo gobolada dhexe ay soo dhaaftay oo ayay maaragtay ayay ahayd marka security aan saraad dhameynaysa marka imtixaankaaga ugu dambeeyay maxaad xusuusataa maba helin annaga jawaabtii imtixaanka ilaa waqti dambe imtixaanka waa galnay si nabad ah aan ku galnay waana 90kii miya 90kii marka ardadii ugu dambeysay imtixaan gashatay absolutely wax naga dambeeyay ma jiraan oo dugsi sare iyo noocii doonta ahaato annaga ugu dambeyn markii imtixaanka nalaga qaaday oo wixii dhamaadeen iskuul kale lama aadin Baydhabo that's it dagaalkiisu ka yaa bilowday maalintii ugu dambeysay maalintii ugu horeysay dagaal ku dhacay marka say ku bilowday magaalada Baydhabo iskuuladii say lagu baaqday say xabadu ku bilaabatay maxaa isbedelay ma caasimada qabsashadeedii baa saameyn ku yeelatay mise Baydhabo la soo galay horta xusuustayda intaan xusuustaan uun isku kabkabaya annaga markii xamar ilaa haddana waa asaas Baydhabo gobolada xamar aad ugu dhow xamar uu saameeyay weli ka mid tahay yani sida shabeellaha dhexe iyo gobolada mudug iyo hiiraan iyo xiriir marka markii xamar maxamed siyaad oo madaxweynaha uu ka baxay meesha la yiri USC qabsatay la yiri ayaa saameyntii ugu horeysay oo amni markaasay nagu bilaabatay annaga oo bandow la soo rogay isaasa la yeelay inta marka laakiin haddana si uun ayay dadku u sugayeen dawlad meesha ka tagtay oo dawlad kale ay bedelayso يعني إلهي أمركيس سايكيجا دتك أنت بدن وحلا فهم كرين أنت سوي ها سيدا نورمال كان ها سال ربي موقتا سيدا إثيوبيا كذا عدي أو الدنيا كذا عجبت ها الدنيا أنا مركا تصال هان وحن سوقيني حكومة ده ساب نظام كيس بدلية نظام كلا إيمانية لكن قبيلة ميل قبسنا يو قبيلة كلا عرسنا يان وقبيلة دي حدود إسديليان haddana adinkoo dhan ay idin saameynayso wadankoo dhan ay saameynaysaa Soomaaliya oo dhan ku kala tagaysa ma oolin Baydhabo dadka qaar inay qabeen fikirka waa laga yaabaa laakiin inta aan maaragtay markaas sheeko wadaaga ahayn iyo odayaasha waxaan ka maqli jirnay iyo markay sheekaysanayaan iyo dawlad wanaagsan Ilaahay ha noo keeno ayaa maaragtay markii xamar xukuumadii ay dhacday dawladii ay dhacday ciidamadii ka soo baxay iyo qaxdad tiro badan oo qaxayo iyo baabuur raran iyo dad rafaadsan iyo waxba maaragtay bilowday oo magaaladii soo marayo oo magaalooyinkii kale u kala socday oo marka waxay ahayd niyad jab weyn runtii dadka oo markaas meeshaas u degan soo wakaayeen dadka soo qaxay gaadiid noocay wateen waa isku dad hubaysanayaan shacab ah waa isku jireen horta ciidamo hubaysan oo toos u hubaysan oo waa jireen oo yimid annaga laakiin xilligaas wixii hubaysan dawladay noo ahaayeen laakiin waxaa badnaa dad iska qaxyo masaakiin oo baabuur waaweyn iyo baabuur yar yar iyo qofka yani si kasta haduu awood u lahaa
ama dhaqaalo u lahaa mar hadduu qaxaayo مسكين ومن طلع من داره maxay ahayd qalla miqdaaro yani wuu iska yaraanaya afka mayga mahmaah waxaa jirto libee daljayn roogna jabaan sagaari leeyahy yani libaax aan dhulkiisa dalkiisa joogin jabaq sagaaruu leeyahay yani si kasta hadduu libaax usoo ahaa wax weyn marka qofka hadduu corneel ahaa generaal ahaa nin lacag le ahaa nin baalki ahaa marba hadduu soo qaxay oo gurigiisa kasoo qaxay oo caruurtiisa afka ku wato oo baabuur waa un iska miskiin inkastoo markaas aniga qof ahaan hebel baa socday iyo hebel iyo shaqsi aanan aqoon aanan dhihi karin laakiin haddana dad tiro badan oo soomaali ah oo qaxayo oo rafaadsan oo ayaa un qulqulaya marka weli laakiin waxbaa dadka u dhinnaa oo waxay lahaayeen dhib male hala qaxo waa lasoo noqon doonaa markii dawlad cusub ay timaado oo nidaamkii uu isbedelo marka dadka badankooda soo qaxaya xamarka soo qaxay waxay islaayeen guriin waa ku noqon doontaa ayaga waxay aaminsanaayeen aniga ma ogi laakiin aniga iyo dadkan markaas sheekaysanaynay waxaanun aaminsanayn in ay soo noqon doonaan dadkan oo macnaha qabiilka waxaan ku iri uu iska dadka individuals ay iska ahaayeen oo iyo qabiilkana macno badan ma lahayn dowladnimaday dadku rabeen maxay ka sheekeynayeen markaas hoos oo dadka soo qaxay fariintay wadeen iyo waxay ka sheekeynayeen maxay ahayd waxay soo arkeen wallahi inta badan waxay lahaayeen xamar waa dowladnimadii waa baaba'day waa la jabay dhibaataa dhacday waa qaar waxay lahaayeen soomaali ilaahay isku soo celi adiga dad u niyad jabsan ayay u badnaan to be honest yani dhowr qof oo muhallikiin oo dambiilayaal ah waxay geystaan baa dadkoo dhan ayaa marka ilmaha markaas socday oo iska dhalinyaro ahaayo annagoo kale iska ahaayo iska rabay inay noloshooda caadiga muqdisho iska joogaan shaneemooyinkooda iyo footballkooda waxooda iska fiirsadaan aabihiis oo generaal ahaa ama corneel ahaa oo dad cun ahaa oo kale wixiisaa saameynaya islaanta waxaa laga yaabaa inaysan waxaas shuqulba ku lahayn oo macnaha marka dadka inta badan ee socday dad iska fidnadu dadka lama taqaano mar hadday fidna dhacdo waayo dadka qaxaya markaan ka hadalno oo baydhabo soo gaarayay waxaan ognahay markuu dagaal ka dhacay waxaa la sheegaa dad badan inay qaxeen caasimadii oo dhan laga qaxay dad badan aan qaxay dadka qaar way awoodeen inay qaxaan oo gaadiid qurux badan iyo hanti ay haysteen oo baabuur ay ku qaxaan ay wateen dadna waa lugeynayeen oo ilmahoodii afka ku siteen dadka soo gaaraya baydhabo maxay u badnaayeen dad safarada ku soo daalay oo wax walbo ay lahaayeen aan soo wada qaadan guryahooda ka soo tagay daalan ayaa noo muuqday aniga intaan xusuusan karo dad soo lugay ma jireen oo ilaa baydhabo hadda kuwaas magaalada un dhinaca ka galaan laakiin annagu waxaan arki karnay waa un baabuurtan waaweyn oo maaragtay qaar xitaa baydhabo ma istaagi jirin oo wadada soddonka wada la yiraahdo inta maraanay baydhabada kor ka mari jirin laakiin annaga intaan aragno oo magaalooyinka iyo magaalada iyo yani soo marayay oo meelaha istaagayay oo maqaayadaha iyo dad daalan iyo oo rafaadsan iyo ayaa caruur iyo dumar u badnaayeen caruur iyo dumar iyo u badan iyo waayeela xitaa ayaa maaragtay noo muuqanaya waay magaaladii baydhabo markaa dagaalkii dhacay dowladdii waa duntay qabaa'ilkii waa dagaaladii jabhadihii dowladda eryanaya ayagana socda oo dowladdii daba socday iyo dadkii ka haray arrimaha bal iga sheekee maxaa baydhabo meeqa nooc oo dada oo kala duwana imanaya markii hore bilowgii hore oo is eryanaya laftooda horta markii ayaan loo dhibaatadaas intaysan bilaaban ka hor dadka waa un rajaday kusii dheganaayeen oo niyaday wax wanaagsan u sheegayeen oo laakiin sida ay wax u rabeen uma dhacayn niyad wanaagii iyo wixii xaqiiqada socotay waa ka duwanayd marka
jabhad la yiraahdo SPM ayaa horta nagu soo horeysay oo soo gashay magaalada. SPM baa timid. SPM dhowr maalmood SPMT waxay la dirireen kuwo kale oo ka soo horeeyay oo ciidan oo hub iyo wax watay oo iyagana magaalada sii joogay. ciidamadii dowladda marka uu SPM meeshii qabsataa la yiri waxa yar kadib dadkii localka ahaa iyo SPMT baa haddana isqabsaday. iyagiina waa soo gudbeen oo dhinacaas kale u soo gudbeen oo Muqdisho. fakarka marka wuxuu ahaa sida hadaayba kuu sheegay waa laga yaabaa gobolada kale fakarkaas inuusan jirin ama baydhababa fakarkaas inuusan ka wada jirin laakiin intaan aniga dad arkay iyo intaan xusuusto uu ku koobnaa waa laga yaabaa. mar raba inaan dadkoo dhan u hadlo laakiin fakarka wuxuu ahaa SPM soo ma imaanaha aagan iyo meeshaan ayagaa u xilsaaran. USC-na waa meelahaas. SSDF-na waa korkaas kale iyo SNM waa la isu tagayaa. dhib ma jiro wax walba iskuuladii waa la furayaa sidaanay maaragtay. markii dambe marka dadkii localka iyo SPM ciidankii jabhadii wixii baa isqabsaday. marka aniga aabahay ilaahay u naxariistee dadkii oo dhan waa qaxeen markii SPM ay soo gashay ayay qaxeen. aniga marka magaaladan ku haray weligay baadiye ma tagin ma arkin. waxaana waa iska sii joogayaa wax laabahay male. odaga markuu maya waa baxaysaa inta yiri waxaan gurigaan sii waardiyeynaa. aniga waxaan aaminsanahay waxaan iska toosi doonaan nolosha baadiyahan. waxaan ka haystay markaas fikir inuu qaxar badan iyo oo ka jiro oo nolol lagu cararaynayo inaysan ahayn. marka dagaalaa marka bilowday. odaga iyo caruurtiisa iyo baadiyay ku maqan yihiin. bas aniga iyo yar hadda London degan oo ayaa dagaalkii xabadihii wixii baa soo dhawaaday. marka guri baan galnay mudul. aagaas mudulka aad baa looga yaqaana xitaa qofka hadduu villa weyn leeyahay mudul yar inuu u dhex dhisto waayo oo qabowga dartiis. marka mudul yar baan ku xarnay qolooyinkii iyo hub wato oo military ahaan dharkii militariga wato oo jabhadii wixii soo galay. marka qolkii furay dhaheen mudulkii fura waa tiidnay inaan furno waa baqaynay. marka ayagoo marka dhahaya waa maqlaynaa marka waa idin dilaynaa waa idinku gubaynaa haddii kala fura dhahay. marka gabar yar oo ayaa nala joogta xanug yar oo 7-8 markaas iyadii yaa ooynaysa afkaan haynaa. marka yarkay la dhalatay anagoo marka iska quusanay oo inay baasuka ku dhuftaan meeshii ayaa oday dariskeen ahaabaa naga badbaadiyey. marka jabhadii ahayn kuwaas ciidanka dowladda ahayn maya waa jabhadii SPM. annaga marka gurigaan ku jirnaaye ma ogina waa dad waa dhimasho badanaa dhacday waa la isdildilay. dilkana markaas meesha dadka waa ku cusub yahay. yaa la dagaalamaya marka iyagu dadka localka ayaa qoryo qaatay. ayaa qoryo qaatay waxbaa la isku qabsaday. waa marka la xiiseynayo uprising meel walba in qoladeeda istaagto la iska celiyo oo reer hebel waaye aan iska dhicin. wixii baa la xiiseynayaa oo bilaabanaya balaayadan ilaa hadda socota ayaa yani qorshihii marka waxaa sii dhumaya dowlad in ay bedesho dowlad kale oo nidaamkan jabhadaha inta isu tagaan inay wax sameeyaan. qorshihii ahaaya rajadiisu sii baabaysa. marka oday baa yimid oo wariyaa ma gurigayga aad gubaysaan caruurtayda aad leynaysaan ma inta bas hadda ma annaga ogeyn caruurta wixii albaabkiiba fura wariyaa albaabkii aan furnay. oday marka waa reer Baydhabo oo ma raba hadda inaan
وهبل وها إيه عنده waa fiican tahay nin idin badbaadiyo wey taariikh uu leeyahay ما annagu ka shaqeey واسكا waay مركا markii ay naga marka tageen daris ahayd anadu waa istaqiineen wiilkay daris ahaayeen wiilkan meesha iskula jirno oo gurigooda aan joogno ayay daris ahaayeen marka sidii baan maaragtay ku badbaadnay marka wiilkan weydiiyey odaga na badbaadiyey wiilkiisa oo aan isnaqaanay cali yara la dhahay cali yara waxaan dhahnaa waa dadkan nagana dil rabay adinka sidee nooga badbaadiseen wuxuu yiri marka isku qabiilaan kor ka nahay waa the beginning of inaan waxaan siday isugu rakiban yihiin iyo inaan fahmo marka adiga qabiilkaaga haddaan dhaho qabiilkaasaan ahay wax ma yeelayaan miya maya waxba kuma yeelayaan waa isku waxaasaan isku nahay okay waa yaaban tahay marka waa cashar cusub wey marka waay markaasaan ku orahaye waa qabiilkaaga muxuu yahay aniga ahaa majeerteena ahay cumar maxamuud ayaan ahay waa ninkan noloshayda oo dhan waa aqaanay laakiin qabiilkas madam meeshaas baahi ma jirin bes ma cumar maxamuud miya haddaan dhaho majeerteena ahay cumar maxamuud ahay marka waa ku badbaadaa soo maha wuxuu waa yes waa ku badbaadaysaa okay bas magaaladii marka aan isku dhajinayay magaalo holcaysa markaan marka waa soo baxnay banaanka markii oo nala badbaadiyay banaanka markaan soo aadnaa waxaan arkay waa labadii jeer aan aad u murugooday ahayd mid ka mid ah magaaladiiyo qiiqayso oo qac meel walba uu ka socdaan arkay waa magaaladaydii ma ogtahay oo noloshayda oo dhan dadka marka la laayo meydadka jidadka ma yaalaan guryaha lagu laayo meydad ayaa yaalaha buundada maxaafadaas dadaa yaalan marka laakiin qof meyd ku mashquulsanba malo dadka waa qaxayaan marka wadooyinkii oo dhan qof walba wuxuu qaadan karo wataa waa la qaxay ishaada intay arkayso marka waa la qaxaya bas marka waxaan go'aansaday inaan iska qaxo anna meelan magaaladii aan lahaa sii joogno shalaynadaa diidin aabbaha raacdo ka haray because rajo aan jirin aan isku si uun waa wishful thinking wixii ay gaalada dhahayeen marka waa soo baxnay aniga iyo wiilkii nala wada dili lahaa yar kaloo reerkan SPM-tan ka dhashay qabiil ahaan haddii la yidhaah laakiin magaaladii ku koray oo aan fahmaynin dadkan waa sidii aan kuu sheegayay iyo dhowr qof aan ku qaxna marka oo qabiil walba leh bes markaan marka magaalada meel kerow fogo la yidhaah oo carrada kaawadana laga qodo oo dadkana lagu aaso markaan soo maraynay dad badan oo qaxaya ayaan ku dhex jirnay waxaan ka war helay uun askar nagu dhex jirto iyo dad la baarayo wixii baan laba boorsaan watay oo dhar iyo waxay ku jiraan iyo kutubadii aan wax ku baranayay kuwii qur'aanka kuwii kale salaadkii wixii aan qaadan karay bas dhig boorsooyinkii aan dhigay wixii uu anfacayay buu kala baxay mid kale wixii anfacay marba kuwaad maree moogtaa guruba kuwii ugu dambeeyaa marka wiilashii waa kala dhunnay safkii dheeraa un baan isaga jirnaa laakiin waa kala dhunnay mar dambaan is heli doonaa banaanka magaalada markaasuu yiri yaata waxaan ku ori marka qori wataa ciidan waa baabuur xaguutaan ciidan kale marka labadii xabo oo aan soo bartaan u sheegay
ما جرتنا يا كتا عمر محمود بس اسكت هودا اسكت قد بي وحير كدب متكلا ما جرتنا عمر محمود ناس يا ما دي قاس فوش با ما جرتنا وحصوصتا ولي ورتدتك إلى أبورة وحنا لكن هي أيدي وكوشة ما جرتنا عمر محمود لا بدأ سكريان مركو قوة سنة أزاقي روحي رورت اسكت مد سدحات هدنا راع سدحات أنا لك كلنا ماشي ومال وين برحد وينه تذكروا بدني قحي ركاسو هي ريايات هالشيء أشرتين هاي كاسو دوري أما أشرتين بديان ومقحة ورد اسكتك كنت بدأ اسمه حذان كوسي ديني ناي بورصدي وبار فيري مقطع بني آدم يعني إن كان وحالة يا بدت كنا وادي لا يا كنت بديان كوسي ديني أنا وعليه يعني وأبيل قيب كم ده مسك حديثة يعني هو وقت جاي سنة ده مرك ماشي اللي قلت تلاقي أكتر ده وقبل شكل مرك هداد قبل شكل الله يدوى قارب بس كل الجناية بقى غير كاسان هاي ورجعني ما كرادي أو واحد ولا الدلاية مركا ما يدب قبل كذا شكل اللي مركو الجدلة of course تدلو دليون ومقلي ساعة وشكتان ما يدب بدنا يال كوا مركا هذا الدلاية توجد ده خصوصا هذا المقلي ساعة قبل كشكتان الدلاية ديو قبيل كوشكتا ما أقان لكن جاتا وحجنون عيسى كان واقع وريا كورو هذا قبيل كذا يحبطه ما يدب بدنا يال لكن كان هرتينا بالوجود دليبه بس marka midka dhaaya marka kutubadaas madaxoodan kugu sii deynayna bistoolada usaas oo wareejina fartiisa ama xabada ku jirta ayrano bas mid kamid dhalinyarada isla soo kornay ma gadaal uu nooga soo biiray runtii ma aqaan aniga meel uu ka yimid laakiin balooni aan wada ciyaari jirnay oo dharkii jabhadii asagana ma aqaan meel uu ka helay goor uu ku biirayba ayaa marka kor naga arkay ma jeerteen adiga ma jeerteen wariya waa runtiis markuu ay yaqaan xaafadaad ku arki jirto isla ciyaari jirteen in aqoon isla korteen u maleeyay maya cabaar waa isla soo kornaan laakiin ma ahayn dadka ambriimada isla soo bilownay ma ahayn laakiin dugsi dhexe iyo meelaha iskala qabsanaa waay adiga ma jeerteen wariya كيا مرك عقو قلقل نقلي أنا جي ويل كله وان مركز دوس هلنا كيا كدبي مت مركا أو ده يكتب بدل ما حودان كوسي ديننا وهي مدحوري وريا وحود دون هذا النجاس الدين حكى قلادي شرط ماشى النجار راعي مدحان باش أنا مدح كعد فنا وكتب أنا مردم بعد دام كاركاد والله الله أرادوا يسكت مركان إسلام مركا واقفة بحثتين راعي وقدم بي أو لكن هود كوا نوع موقدا مركا جديه كوا أنا وقدم بي كويا مركز السؤال يا طاي لبدي أنا قانيان دفاعي هيد بان كتوري waxaan filanayno uu weydiiyay marka yaa ka taayir aniga marka labadaas aan uu watay Soomaa marka horena maadan ogeynba inuu si weydiin doono intaasna ku egtay kula yaa abaarna waa ku soo socday marka waa markaas uu yiri yaa ka taa waxaan koriniyo aniga magaalaan ku dhashay qabiil ma aqaan labadaas kaliya ayaan ka aqaana asagoo mar kale dhib boorsooyinkii midna xarigii intuu ugu jira intay ka raaracda ta kalena xarigan shaaka markaan soo qaadanayo waa buuxeen laakiin hadda waxba kuma jiraan aan ahayn kutubadii
wixii dhar iyo lagala kulli baxay waa lala baxay bas ilaahay amarkiis yarkii haddana bistoolad saas u wareejinaya kutubada madaxoodan kusii daynaynaa laha kiibaa haddana mar kale kor naga soo arkay kiibaa haddana yimid wuu soo ordaya saan wuxuu kalama dheera marka meel u lagu joojinaya waay kaasuu annagaa sii daynay maxaa u haysataa de waa mucjisa yani wax ilaah ku soo diray ha maadig kaa sii daaya ha haddaba jartay buu sheeganayaaye ma aha ninkaan war wuxuu doona ha ahaado adigu maxaa kaa gala annagaa sii daynay okay ninka saa kule ee ku daynaya ee xataa saaxiibkaagii kaa badbaadiyey kulahaa ma tihid qoladaa sheeganayso ha ee weli ku daba socda ha isna dad uu u dilayaa qabiilkooda markay sheegtaan exactly يعني waxyaabaha dadka qabiil hebel waa fiican yahay iyo qabiil hebel waa xun yahay qabiilka hal qof maaha dad fiicanna waa leeyahay dad xunna waa qabiil walbaa sidaas qabiil fiicana ma jiro qabiil xumana ma jiro ana qof fiican iyo qof xun jira waa shakhsiyaad iyo waqtigaaga ninkan ibadbaadinaya mar walba iyo midkaan isku xaafadda ahayn oo raba in la idilo iyo midka nala qaxaya annaga ee aan kuu sheegay ee nala socda saddexdooduba waa isku qabiil mid baa diyuhu noola qaxaya waa cunug madani iyo xaafadkooda waa madani oo isku xaafad aan ahayno waa nala socda dadkan ma fahmayo waxaan qabiilkan iyo dadkan baadiyaha ka wada yimid oo dadka dilo oo hubaysan oo waxaan ka sheekeeya gabayo dad la soo dilay iyo waxaan ka sheekeeya 500 oo sano ka hor waxaas ka sheekeeya ma fahmayo isaga midkan kale oo madaniga nala ahaana in la dilo rabaa midkan kii dadkaba dildilaayo waayo oo wax dildilaayo in la badbaadiyo rabaa saddexdaba waa isku qabiil bas kii ugu dambeeyay ku yimid marka daayir anaga badbaadiyo si daayir anaga bas waa iska baxna marka banaankii ayagiyo igu sii sugaayo dhalinyaradii aan wada qaxnayaan eeshaan soo tagnay waa lugayn habeen waxaan saaxnay meel la yiraahdo haween tuula 14 kilomitir camal bay daba u jirto marka aabbahay wuxuu joogaa meel la yiraahdo goof gaduud oo 30 kilomitir qiyaastii bay daba u jirto marka haaf baan habeenkii soo gaarnay marka dhal magaalo la yahay socod lama yaqaan iyo luqtaas iyo maaragtay jirkii uma samaysna habeen meeshii baan seexanay subaxii baan marka socod bilowna marka magaaladii tuhuradii oo kale magaaladii tuuladii aan u socnay goof gaduud la yiraahdo markaan ku dhawaanay ayaa ciidan nagu soo baxay marka سرم ساك يا بس ايش استاكنا ليك بورس وشي عندك ايتي وريها ياتي marka ciidankan waa ciidankii magaalada iyo tuulada waardiyeynayay wixii oo dhan afar ka sii baxaya nidaamkii yaa dhumaya qof walba waa iswaardiyeynaa camal iyo wixiina waa la xiiseynayaa markaas aan marka waxaan islahaa in my own maaragtay fikirkayga perceptionka waa waxaasoo halis oo dhan waa ka baxdeen si un ayaan isaga dhaadhiciyay in halista dadkaas un ay la socotay af kale nabadeed aad soo gashay af kale ugu hadlaa jirtay waa nabad qabtaa marka waxaan ku war naga taga wariya waa kalsooni baa igu yara jirta moogtaa markaan marka xabada agteeda bak lagu soo markaasaan naxna ayatin wariya sheega marka problemka wuxuu yahay labadan
ma jeerteen iyo cumar maxamuud ka aqaanay oo kalaan ka aqaanaa qabiilkan ka dhashay labadaas keliya hawl kala waaye that's because runtii baahiba ma jirin oo gobolada kale waxaa laga yaabaa qofka inuu waryaa tahay doqon baa tahay sheeg waryaa baro ciddaa tahay iyo waxaas lagu abaabiyo laakiin inta ma jirin bas labadii markii xoogo aniga laftigeyga warbax waryaa waxbaan dhadhahay anoo kalsooni isgelinay markay xabadda meesha ku rideen ayaan markaa labadan aqaanay baan u sheegay markaasaa la yiri ay quit yaa ka tahay miya waay ma aqaanaan ku cidaan waxaan ka siiyaa markaasaa la yiri inta u istaag adi dhinacaan u istaag mid kale la weydiiyey inta istaag mid kale la weydiiyey inta istaag aniga marka waxaan waa ahay qabiilkii kuwan kale maba ahaba laakiin khibrad waxaad leedahay qof kastoo la weydiiyey qabiilkiisa oo qoladii weydiinaysay qabiilkay rabeen aan ahayn inay dhinac u leexinayeen qofkay sii daynayana baxa ay lahaayeen aad xusuusataa marka meesha soo martay meeshii xagga ahaa marka uu ku dhamaato wey marka xalay iyo intaan soo soconay iyo xalay iyo haween tuuladii intaan jiifnay ayaan iswa weydiin war adiga yaa ahayd hebelow aniga qabiilkaasaan ahaa aniga ogaadeen baan ahaa aniga xawaadla ahaa adiga yaa ahayd aniga abgaala ahaa adiga ayaad habargidra ahaa adiga yaa ahayd hadama ahaa aniga adina ay ahayd waa saas waa isa soo weydiin annagoo ka xishoonayna oo ilaahay igu ogyahay inaan isweydiinno xitaa ka xishoonayno markii abaabintii ma aha ayaan haddana waa dani si kalaad isku baranaysaa dadka because waa inaan la jaan qaadnaa duruufahan cusub oo yimid bas markaasaa la istaagaa lagu yiri marka hadda adaa adiga reerkaaga u socdo oo marka tuulada aan albaabkeeda taaganahay nalagu hayo aabbahaygaa jooga aabahaygana aadan hoos waa nin la yaqaanay oo gabyaa weyn ahaa oo laga yaqaano waa meeshaas waana meeshu tuuladiisa waa meesha oo albaabkeeda xabad la igugu ridaayo waay dhinaca istaagaa lagu yiri bas dhinaca istaag adiga iyo bas waxaa la yidhi marka kawaanka hal jeeyo hala qalaway waa meel dadka lagu dudilo marka oo uun hadda uun bilaabatay bas kaliya marka inaad qabiilkaaga sheegatay jifadaada sheegatay cidaad ka taasi sheegi weyday kaliya aan sii sheegi marka hadday mid baa yiri waa badbaadiye moogtahay oo yiri wuxuu doona ha ahaade hadda waxay dhahayo wuxuu doona ha ahaadee male marka waana qabiilkaaga runta ah ma jawaana qabiilkayga runta ah bas kaaga sii darare ninka ciidanka markaas haysto oo amaradan bixinayo ilma adeerana dhowr oday baan kala tirsanaa markii dambe afkayga ilaahay wuxuu ka soo bixiyay wareeda aniga aadan hoos oo wiilkiisaan ah idin hoos oo ay dhaleen mid baa yiri marka idin hoos oo awlaadis dhom roogan waa joogaan hor ula soo qaxay wax ka maqan ma jiraan markii waana kaliya maqnaa moogta marka wuxuu waa mid daris oo tuugadan hadda meesha soo gashay kamid ah oo ka dhashay oo daris reer aadan hoos oo la ahaa iyo meelahaas waaye abtirkana intaas yar oo ka bartay marka inuu ku badbaadiyo raba exactly waa sidii majeertaanka aan u soo sheeganayo aan ku soo badbaaday amal uu sheegaya aniguna marka igu apply gareynaya waaba soo sameeyay taas laakiin tan kuma sameeyay mid kale hadda runtii la jooga tii marka runta ii ahayd oo aan ku badbaadi lahaa waxaan halis ugu jiraa in la ii fahmo tii aan ku soo badbaaday in hadda been sheegaysa la moodaa in hadda aan been sheegay afka ku hadlaysa kuma caawinayo no barke reer baydhabo dhan ku hadla afkii kuwa ila socdo oo dhan waa ogaay kama garanaysa kulli isku mid ugu hadalna waay bas arkaasa aadan hoos ma aabahayo marka isugayay iga welwelsanaa baydhabo inuu dagaal ka dhacayna
maqlay ayaa marka soo baxay xabadana maqlay baqbaxda xabadana lagu riday bas anaga marka xaggaana lagu hayaa geeda waaweyn oo qodxa iyo wax meel war oo warta biyaha marka aad asxaabtaadii kulli waa laydin leexiyay marka absolutely cid la sii daynaya ma laha no marka wuu soo ordayaa marka odagii warya koru ka soo qayliyo bas odag marka wuxuu caan ku ahaa oo lagu yaqaanay bakoorad seef ay ku dhex jirto haddaad saas u kala jiiddo seeftay soo baxso ماشي مركز على مركز عيدا كي كوي هروب كسر دعي أسو وريه ويل كي جام مقام ما يم ما أركتين ماذا مركز جاس ويري مت هذا هو سواء دلائل هذا كجرويري كوان عشان كوين أو حقوقات مرة هريني الدلين حبدي وحي صور warta gadaasheedana lagu haya marka geedaha hoostooda aashiinood markaas mid qorisaas iigu hayo marka kasoo dul dhacay safety uu kula booday marka keena safety iska qabay intay ka jaahay dig wariya wiilkayga dilaysan anagu wiilkaaga xaruurtaada inay kula joogeen baan ayaan u haysanay maashi aniga marka wixii markii aan ka soo tagna meeshii oo nala soo waday oo marka kulligii waa ku badbaadeen of course yaa taaban kara marka mar haddii oo markaas wixii ugu soo noqdeen cabsi cusub aad uga tiro badan tii markaas xaaladda aan ku dhex jiray haysay ayaa igu bilaabata marka waxaan dareemay sida fudud ee aan u dhiman karay يعني فهم دري إيو identity لقلدي أون ID قلدان درتين هذا محبك قلب سنة وحن كلون دريمي قبيل كقاب درديس يجهل لك ماشي يالو ها يجهل لك ماشي لبدا ديناحبا يعني قف أنكو أقون hadduu ku dilo iyo hadduu ku daayaba weliga aadan dhibaato u geysan haddana raba inuu ku dilo waxaadan adiga geysan hadduu ku dilayo xitaa nin kastoo ku dilayo waa cadow ama qabiilkaaga ahaado qabiil kale ha ahaado aniga nin kastoo naftaada u socda wiilkaas yidhi kutubadan ku daynaynaya iiga roon midkaan le waa ii dili lahaa oo laakiin ilma adeerna aan nahay you see yani aad iyo aad waxaan marka si loojigaba haddaad u fikirto ayaan low qabiilkan cadow ku yahay noloshu cadow ku yahay yani hadda fiiri simply Umar Mahmoud aan ahaan iri tiya waxay iga dhigtay nin wanaagsan oo aan ku fiicnayn nin wanaagsan oo aan ku fiicnayn in la dilo ayay iga dhigtay simple ما يعني ما دام عمر محمود جاي وما قلم إنه بنته وفيرسه قولده كدين السنة قبيل كوري وذا كان عمر محمود ما أها فيري لكن أضيجي مرة رئيس صوف الصحة نجبت بادية مدل كي مركان كوجرني حدنا يقصه هو إن شيك طلبان سي أن أبد باد عمر محمود مجرتين عمر محمود ده سويري سي أن أجبت بادو كوان أو أذيرك وياهي إسقنا وأن قبيل كي هدرا مواصب حي وحي وتر ترير كاجات وتمد الحمد لله وأسوق حي وحنيت هاني سجد الدعينا جي كوان إنه يتدوالن يهين أو ضد باتة وضع يهين أو ما ركتي إلهي يجسوا بتبادي لكن سيمبل أنا كذا شيء درت هذا comfortable وها موجي ليش ما تعمله وحي أسفيرسو وعبا أنتوا كاس يدري لهاي وكنا ربايل ويدري إسلا أنتي أفكا أن ما يبحثري كلا شيك عدة ولي بوا كسي حنون بدنتا مركي قبيل كي أهيد
haddana in adeerka uu ku dilo isagoo kuu haysta inuu qof kale dilayo adiga iyo qofka kale idinma kala saari karo in fact micnaba uma sameynaysid therefore waxaasoo dhan ayaan habeen iyo maalin isku darda muddo igu qaadatay wixii inaan wax la fahmi karo isku xiran aan ka soo saaro cabdi aadan hoosow aad buu mahadsan yahay saaxiibayaal qaybtan waa qaybtii labaad waxaan jecelnahay inta ay noo joogto waxaan u geli doonaa qaybta saddexaad ee waraysiga oo iyana ku saabsanaan doonta halkaa wixii ka dambeeyay ee dhacay marka la eego arlaadi dhulka bay boqol loo yaqaano dhibaatooyinkii ka dhacay waxyaabihii uu u soo joogay cabdi aadan hoosow uu ka sheekeynaya hadduu allah awood ila ogolaado waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan inta badan barnaamijyada ha noolaata ka baxan waa barnaamijyo aan ugu talagalnay wacyigelin iyo in wacaalka dadka kor loo qaado oo ay ogaadaan dadka soomaalida ah qofka dhintay iyo kan nool labaduba inay soomaali yihiin kii dilay iyo kan dilayba labaduba inay soomaali yihiin laakiin muhiimaddu ay tahay in la eego daalimka iyo madluumka in cod loo noqdo madluumka oo mar walba dhibaatada ay soo gaarto marka waxay noo ballanaa barnaamijyada soo socda hadduu allah awood ila ogolaado intaynu mar kale kulmi doono waxaan leedahay nabadgalo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baxa noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelino waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinu wax weyn bay noo tahay mahadsanid